madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle soo dhaweynta goobta waxaa ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo sheegay in baahiyo kala duwan ay ka jiraan gobolka Hiiraan iyo sidoo kale fatahaada webiga Shabeelle haddii aad noo timid waqtiga cariiriya in alle intii joogta waxaan idinku salaamayaa karaamada aad mudantihiin iyo sharafta aad mudantihiin madaxweyne maadaama aad noo timid waqtigoo cariiriya awgeed wax sheegidna waa ka dhantaa indhahaadaad ku soo aragtay airboortka waa soo aragtay fatahaadii weliba annagoo ka soo noqonnay waa soo aragtay war waa yeelaalin waa wada indho waxaan hubaa inaad ka dhan tahay in wax lagu sheego annaga waxaa qiimo noogu filan oo karaamo noogu filan oo aan isleenahay wixii aad rabteen waad hesheen imaatinka aad noo timid ayaa noogu filan sida aad noo qiimaysaa noogu filan sida aad uga naxday Beledweynaha noogu filan waxaan rajaynaynaa awaamirta aad bixisay iyo baaqyada aad dirtay inay miro dhali doonaan madaxweyne waxaan kaliya rabaa inaan cudurdaar ka bixiyo odayaasha halkaan fadhiya oo waqtiga cariiriga dartood qof kastoo meeshaan fadhiya beelow matalaa dagaalow ka yimid inuu madaxweynihiisa la hadlo rabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa sheegay in gurmad degdeg ah la gaarsiin doono magaalada Beledweyne isla markaana xaaladdu ay tahay mid faraha ka sii baxayso iyo dhibka ay ku jirtaan oo ay keentay musiibada dabiiciga ah oo ugu yeeray musiibo qaran oo runtii kulligeedna wada xanuujisay waan ognahay dad kor u dhaafaya maanta inay bannaanka degan yihiin in laga soo qaxay magaaladii weyneed ee Beledweyne laga soo qaxay oo kulli fiya fadhiyaan oo weliba qaar dad ay weli ku goodaysan yihiin oo la raadinayo sidii loogu geli lahaa alxamdulilah mashaa lama sheegin wacyasa waajigaan waxaan idin caddeynaya oo aan idinla wadaagaya inaan abuurnay aan sameynay magacaabnay guddi heer qaran oo musiibo oo uu hogaaminayo wasaare ku-xigeenka maxaa yeelay musiibadan waa musiibo runtii aad iyo aad u culus oo aan doonayno inaan ugu yeerno dowladda keligeed ma aha ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogaan iyo beesha caalamka annaga qaybta looga soo aadan oo dowladda dhexaha federaalka ah waxaan qaadanaynaa qayb aad iyo aad u weyn oo qaybna waxaan qaadanaynaa insha Allah hadduu ilaahay waxaan la soo gaaraynaa gargaar degdeg ah hadduu ilaahay yiraahdo waan jeclaan lahaa inaan imaado Beledweyne iyo Hiiraan iyo Shabeelle inaan imaado iyadoo isaan ka wanaagsan tahay oo aan magaalo u maro oo aan dadka arko oo aan qiimeeyo xaaladaha dadku ay ku jiraan laakiin haddee wax walba waa xikmad ilaahay iyo xukun ilaahay inaan maanta halkan imaado dhibkaana idinla wadaago insha Allah hadduu ilaahay yidhaahdo markaan noqdo dib baan isku noqonaynaa dadkaas waaleen oo banaanka degan oo dib baad ka mid tihiin oo guryo fiican deganaa oo nolol haystay oo maanta laga yaabo wax walba ay haysteen noloshooda inay baaba'day inaan gacan ka siino wax alla wixii awoodeenaa muhiimadiisa waxay tahay musiibooyinkan oo kale oo soo noqnoqonaya inaan hayno qaabkii aan uga hortegi lahayn marna biyuhu waa fatahaan marna biyo la'aan yaa dhacda taasna waxaa keentay inta badan xikmad ilaahay oo ku jirta waxaa keentay inaan u baahannahay dowlad adag dowladda laabsan inaan u baahannahay taas yaa runtii xaqiijinaysa marka sidii looga hortegi lahaa musiibooyinkan oo kale tasbiir ma aha inay joogsadaan wixii ilaahay keenayo waa wax naga weyn laakiin inay yaraadaan dhibaatadooda iyo waxyeelkooda ay yaraadaan waan ku soconnaa
waan ku dul jirnaa waan qorsheenaynaa waana ka shaqeynaa hadduu ilaah yidhaahdo sidaan uga hortagi lahayn dhibaatooyinkan oo kale ee dhacaan laakiin waxaa muhiim ah kulligeen inaan samaysano kulligeen inaan qaadano inaan la shaqeyno dowladda oo gacan siino wax alla wixii dowladda carqaladeynayo oo aan naqaano muddadaan kusoo jirnay aan joojino ama aan ka hortagno ama aan la dagaalnaba aan ugu dambayso shabaab ay ugu dambayso qolooyinkan musiibada qaybta ka ah oo diiday dalkii isu maro oo maalin walba qarxinayo oo leynaya shacabkeenna hadday duqay yihiin hadday carruur yihiin hadday dumar yihiin aan u naxayn inaan ka wada hortagno kulligeen. maxamed towane ceelo maxamed daacad wararka telefishinka caalamiga star beledweyne.